السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa la sheegaa Xaatim al-Asam inuu ahaa nin faqiir ah. habeen isaga oo la fadhiyo asxaabtiisa lana sheekaysanayo ay ku soo qaadeen sheegidda xajka. Xaatim qalbigiisa ayaa waxaa galay jacayl u jeclaaday xajka, wuxuuna doonay inuu aado xajka. wuxuuna u tagay xaaskiisa iyo carruurtiisa, wuuna la fadhiistay si uu arrinkaasi u qanciyo. wuxuuna ku yidhi, sidee idinla tahay inuu aabbihiinna aado sannadkaani guriga rabbigiis asagoo xaaji ah? xaaskii carruurta ayaa dhaheen, waxaan nahay sida aragto, waxbana ma haysanno. sidee rabta inaad nooga tagto oo aad u aaddo xajka? yaase nooga tegaysaa? maxaanse cunaynaa, maxaase cabaynaa? gabadhii ugu yarayd ayaa dhahday, maxaa dhacayo haddii aabbahay ku waafaqdaan inuu u safro xajka? allah ayaa ah midka wax qoodiyo, risqiguna gacantiisa ayuu ku jiraa. haddii uu safro aabbahay, ma alle ayaa noo diidayo risqiga? waxay dhaheen, run baad sheegtay. xaaskii iyo carruurtiina Xaatim way u oggolaadeen inuu safro. saas ayuu ku safray Xaatim, ehelkiisana wuxuu uga tegay xoogaa lacag oo ku filan 3 maalin. Xaatimna wuxuu ahaa mid gabar ka socdo dadka u safrayo xajka, sababtoo ah ma uusan haysanin wax maal ah oo ka dhigayo inuu la socdo dadka. intii lagu guda jiray safarka ayaa waxaa xanuunsaday hogaamiyihii safarka. kadib dadkii waxay raadiyeen qof u daaweeyey hogaamiyaha. waxaa yimid Xaatim, wuxuu daaweeyey hogaamiyihii. kadib hogaamiyihii ayaa yidhi, qarashka ninkani ku baxayo bixid iyo soo laabasho aniga ayaa bixinayo. Xaatim rabbigiis ayuu u mahad celiyey, alle ayuuna baryey, wuxuuna yidhi, allow sida arrinkayga u maaraysay u maaray kan ehelkaygana. 3 maalin kadib ayaa qoyskii Xaatim waxaa ka dhammaaday quudkii iyo waxay cuni lahaayeen. maalintii afaraad ayay baahida joogi waayeen. baahida awgeed ayay la ooyeen. iyagoo sidaas u oynayo ayay gabadh yarad dhoola caddaysay. markaas ayay ku dhaheen, maxaa u dhoola caddaynaysaa? adiga oo sabab ah waxaan dhane. adigaa nagu qanciyey inuu aabbahaan safro. markaas ayay ku tidhi, waxaan la yaabanahay waxaad la oynaysaan. waxaa safray qofkii risqiga noo keeni jiray, waxaase noo haray kii wax irsaaqayay. iyagoo sidaas ah ayaa albaabka la soo garaacay. gabadhii yarad ayaa albaabkii furtay. albaabka waxaa taagnay qof biyo u raadinayo amiirulmu'miniin. amiirulmu'miniin iyo ciidankiisana iyagoo u soo baxay inay soo ugaartaan ayay biyihii ka go'een. xaaskii Xaatim ayaa intay samada fiirisay tidhi, xalay waxaan seexannay annagoo baahan, maantana amiirulmu'miniin ayaa albaabkeena taagan isagoo waraab naga dalbayo. kadibna koob yar oo cusub ayay qaaday, biyo ayayna ka buuxisay. amiirkii ayaana ka cabay biyihii, cabitaankiina wuu macaansaday. markaas ayuu yidhi, gurigaanni waxaa leh amiir. waxaa lagu yidhi, maya wallaahi waxaa iska leh addoon ka mid ah addoommada alle ee wanaagsan, waxaana loo yaqaanaa Xaatim. amiirkii ayaa dhahay, waan maqlay. nin wasiir ahaa ayaa dhahay, waxaan maqlay inuu xalay xirtay xaj uuna safray, ehelkiisana waxba uusan uga teganin. waxay sheegtay xaaskiisa inay seexdeen xalay iyagoo baahan. markii uu maqlay amiirka warkan, wuxuu furay shay dhexda ugu xirnaa oo ka samaysan dhayman iyo dhagxaan qaali ah. dadkii la socdayna wuxuu ku yidhi, qofkii ani i jecel ha soo furo shayga dhexda ugu xihan. markaas ayay soo wada fureen kulligood, waxayna siiyeen qoyskii Xaatim. maalintii labaad ayaa waxaa qoyskii u yimid qof raba inuu ka iibsado wuxuu amiirka siiyey. wuuna ka iibsaday, wuxuuna siiyey lacag badan oo u dhiganta wuxuu ka iibsaday. lacag badan oo gurigooda buuxisay, noloshooda inta ka dhimanna ku filan. hooyadii iyo carruurtii markay arkeen arrinkaas waxay farxeen farxad aan la soo koobi karin. laakiin gabadhii yareed ayaa oysay ooyin aan la soo koobi karin. markaas ayay ku dhaheen, maxaad la oynaysaa? waxaa nagu waajiba inaan nimcada alle ku faraxnee. markaas ayay ku tidhi, arka xalay waxaan seexannay annagoo baahan, waxaana noo yimid addoon addoommaha alle ka mid ah. hanti ayuunana siiyey. ka warrama hadduuna soo fiirin lahay allaha caalamka abuuray. mar walba ku kalsoonow rabbiga.